mudan raiisul wasaare kaaga mahad celinaynaa waqtiga qaaliga ah iyo sidaad u jeceshahay inaad bulshadaada gaarsiiso fariimaha iyo waxqabadka dawladda Soomaaliya. Su'aasheeda ugu horeysa waxay tahay dhawaan waxaad tagtay adiga iyo wafdi aad hogaaminayso magaalada Washington halkaasi oo aad kaga qayb gasheen shir ay soo qaban qaabeen bangiga adduunka iyo IMF-ta. shirkaasi kulamo gaar ayaa daba socday. hase yeeshee shirkaasi wuxuu Soomaaliya u ahaa mid muhiim ah marka laga hadlayo arrimaha dib u habeynta dhaqaalaha. maxaad la tagteen shirkaasi maxaase kala soo noqotay? waa mahadsan tahay walaalkay. marka hore aadan idinku mahad celinaya haddii aad tihiin Universal. shirka aan ka qayb galnay wuxuu ahaa shirkii ugu muhiimsanaa oo ay dawladda Soomaaliya gasho sanadihii la soo dhaafay. sababtoo 2 sano oo howl weyn ah kadib waxaan hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka kala hadlaynay go'aan in laga gaaro waqtigii dawladda Soomaaliya loo bilaabi lahaa in deynta laga cafiyo. waxaan ku heshiinay in 6 bilood oo soo socota ama ugu dambeyn February sanadka 2020 ay bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga horumarinta Afrika inay Soomaaliya albaabada u furaan deyntana ay ka cafiyaan. macnaheedu waxay tahay waa inaan ka soo baxno shuruudo waaweyn oo na hor yaala oo qayb ka ah dib u habeynta dhaqaalaha dalka laga bilaabo bisha May ilaa February 2020. maalinta ilaahayna gaarsiiyay waqtigaas oo aan shuruudahaas ka soo baxno waxaan noo bilaaban doontaa 2 arrin. waxaana la ka cafin doonaa deyntii ay nagu lahayd hay'adda lacagta adduunka, deynta uu bangiga adduunku nagu lahaa, deynta African Development Bank iyo bangiyada kale ay nagu lahaayeen. waxaa noo furmi doona hay'adaha horumarinta dhaqaalaha ee bangiga adduunka iyo bangiyada horumarinta adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka ee IMF. macnaheedu waxay tahay maalintaas waxaan albaabka la gelaynaa haddii uu Ilaahay yiraahdo Soomaaliya cusub. Soomaaliya ganacsatadu ay fursad u helayaan in balaayiin dollar adduunyada ay dalkan maal gashato. Soomaaliya dawladdu ay lacag si toos u heli doonto. Soomaaliya loo aqoonsaday in qaab dhaqankeedii dhaqaale uu noqday dawlad dunida iyo hay'adaha dhaqaalaha adduunka la jaan qaadi doonto. sidoo kale waxaan kala soo laabanay in bangiga adduunku ayaan dhaweed noogu deeqay 140 milyan oo 40 ugu horeysay ay bilaabatay inuu noogu deeqay 130 milyan oo cusub sanadaha soo socda. taasina ay keentay waxqabadkii hufnaa ee dawladda Soomaaliya qabatay. waxaa kaloo aan kala soo laabanay in dawladaha lacagta ku leh Soomaaliya oo Mareykanku ugu horeeyo oo Ingiriisku ku xigo, Talyaanigu ku xigo, Norwegiga cid walba meesha joogtay in ay shirki ka yiraahdeen waxaan taageersanahay 100% horumarka dalka Soomaaliya uu sameeyo. waxaan ka caawinaynaa deynta inaan ka cafino. dawladda Mareykanka ugu horeysana waxay bilowday iyadu inay ka shaqeyso sida ay miisaaniyadeeda ugu dari lahayd deynta mustaqbalkana la ka cafin doono. muddada ay xukuumaddaadu jirto waxaa dadka Soomaaliyeed aad ugu batay dhagahooda arrinta la xiriirta deyn cafinta. maxaa Soomaaliya kaga xiran arrimahan deynta gaar ahaan markaan ka hadlayno deyn cafinta? deynta cafiskeeda macnaheedu waxay tahay waxaa nala ku leeyahay in ku dhow 5 bilyan oo dollar. sida kaliya oo adduunyadu ay noo siin karta dhaqaale ama naloola falgeli karo ama ganacsatadeena sida sharafta la u shaqeysata adduunyada ay dhaqaale ugu darsan karta ama u maal gashan karto waa in deyntii nala ku lahaa aan iska bixino. iskama bixin karna maadaama aan iska bixin karin waa inaan helnaa qaab adduunyadu ay deyntii nooga dhaafto. waxaa jira marka tallaabooyin la maro. tallaabooyinkaas waa in hay'adaha dhaqaalaha dalka lagu sameeyo dib u habeyn lala dagaalamo musuqmaasuqa. dawladdu ay miisaaniyadeedu noqoto miisaaniyad isu dheelitiran, dhaqaalaha waddankana la kobciyo. intaas la sameeyo shuruudaha ku xiran waa shuruudo aad u dhib badan. 2 sano ugu dambeysay dawladda Soomaaliya waxay hay'adda lacagta adduunka ka tiri shirkii aan joognay qoraalna ay ku soo saartay 30 sano ee la soo dhaafay waddankii ugu wada shaqayn wanaagsaneed sameeyana horumarkii ugu dheeraa inuu dalka Soomaaliya yahay. ugu dambeyntii haddii aan ku guuleysano Ilaahay yiraahdo markii la gaaro dhamaadka sanadkan ama bilowga sanadka soo socda waa haddii qof walba Soomaaliyeed shacab iyo siyaasiba ay nagala shaqeeyaan hawshan adag oo aan wadno
waxaan samaynaynaa taariikh cusub waxaan noqon doonaa wadankii ugu dhaqsiyaha badnaa oo soo gaara meesha aan soo gaarnay xataa marka lagu daro Liberia ama Sierra Leone oo midna Ingiriisku uu taageerayo midna Mareykanku uu taageerayo way arinta dib u soo kabashada dhaqaalaha waxay kamid tahay tiirarka muhiimka ah xukuumadda miisaaniyadii dawladdu way korortay dakhligii gudahana kor ay u soo qaadeen laakiin gulahaasi waxa barbar socda in ganacsigii magaalada uu yara hoos u dhacay ganacsatadiina qaarkood ay iska bixin laayihiin kiradii kadib markii wax iibsigii uu hoos u dhacay mudane ra'iisul wasaare soo labada arrimood waa kuwa isdiidan ma oran karno waxay isu diidan yihiin waxaa la rabaa inaan nambarada haysato aad dib ugu laabato waxaan rabaa inaan wax walba number ku qiyaasno labadii sano aan joognay dhaqaalaha GDP-ga lagu qiyaaso dalka Soomaaliya kor u kacay markii la yiraahdo sicir bararku waxaan ay dalka ugu hooseeya dawladaha nagu dhow marka la yiraahdo ganacsiga la diiwaan geliyay waxay ugu badan tahay labadii sano la soo dhaafay awoodda wax gadashada shacabka sida hore kor ay ugu kaceen dhaqaalaha ama lacagta socota oo wareegaysa markii loo barbar dhigo 5 sano ama 7 sano la soo dhaafay way ka badan tahay marka ma isqaadi karto inaad aaminsan tahay in ganacsigu hoos u dhacay ee canshuurtan qaadayna inta hore ka badan tahay ganacsiga la diiwaan gelinayo kor u badan yahay sicir bararku inuu hoos u dhacay haddii aad fiiriso warbixinta ugu dambeysay hay'adda lacagta adduunka ay samaysay waxay ku leedahay dhaqaaluhuna kor u kacay ganacsigu kor u kacay ugu dambeyntina waxay aaminsan yihiin in labada sano soo socotana haddii Ilaahay yiraahdo haddii aan ku sii wadno inuu kor u kici doono waxaan kala rabaa inaan ku sheego siyaasadda dawladdeenu ay ku dhisan tahay waxaa laf dhabar u ah in la kordhiyo ganacsiga sababta aan rabno deynta in la kaga cafiyo ma aynay dawladdu kaligeed u xasho waxaan rabnaa in hay'adaha horumarinta dunida oo dhan ay la yimaadaan billions of dollars ay maal gashadaan ganacsi Soomaaliyeed ganacsigaas uu u kobco shaqo loo abuuro canshuurta dalka ay u kororto dawladduna ay adeeg u bixin karto marka dhinaca kale keegna soo ma dhigi karno caqabadu waxay tahay arinta amniga oo xirnaashihii wadooyinka iyo arrimahaasi ay ganacsiga waxoogaa culays ku abuureen arrimaha amnigu waa u soo gali doonaa laakiin ganacsiga sidiisaba waxa ay tahay dawladdu inay u samayso aasaaskii ganacsigu uu ku dhaqaaqi lahaa in dawladdu aanay dadka dhibayn in dawladdu musuqmaasuqeedu yahay in shuruucda loo baahnaa ay leeyihiin in ganacsatada ay ku qanacsan yihiin nidaamka siyaasad dhaqaale ee dalka ka jira waxa kaloo aan rabaa inaan hoosta ka xariiqo dawlad aan ganacsatada la shaqeynan dhaqaalaha ma kobcin karto ganacsatada iyo annaga waxaa naga dhaxaysa wada shaqeynaan rabno inaan sii kobcino si ay noogu suurtoodeen dhaqaaluhu sii kor u sii way si aad ula dagaalantaan musuqmaasuqa waxyaabaha aad joojiseen waxaa ka mid ah in lacagihii wasaaraduhu ay qaadi jireen aad u samayseen nidaam wasaaradda maaliyadda ay xafiis ugu yeelanayso goobahaasi qarashaadka iyo lacagaha soo xaroodana loogu shubayo halkaa taa waxoogaa cabashaa ka timid oo wasaaradii qaar adeegyadii shacabka ayay gaari waayeen hadday ahaan lahayd in mararka qaar dadka gaadiidka la soo dega ay waayaan taargooyinkii maxaa isbedelay sida adiguba aad sheegtay markaan shaqada bilownay 26 wasaaradood aan leenahay 22 kamida si bay dakhli u aroori jireen hay'ado kale badan oo madax bannaan oo magaalada ka jira oo dawladda qayb ka ahna iyana waxay aroorin jireen dakhli wadanna si musuqmaasuqana loo ciribtiro dakhliguna uu ahaado mid jaan go'an hal meel lagu arooriyaa waxaana aroorisay wasaaradda maaliyadda iyo bankiga waa in qof walba oo Soomaaliyeed oo adeeg raba in la siiyo loogu fuliyaa sida ugu hufan macnaheedu waxay tahay waa inuu bankiga tagaa iska soo bixiyaa keensadaa cadayntii uu ku soo bixiyay wasaaraddii ama hay'addii adeegga siin lahaydna ay siisaa haddii la maro nidaamka waxa caqabado ka imaanaysa male dhaqaalaha kobcayana waa inuu marka ugu dambaysa dhaliyaa in dawladdu ay iska bixin karto baahida adeegyada ay u baahan tahay iyadoo inay bixiso
waxaana ku dhownaa hadda meeshaas tusaale yar haddii aan ku siiyo haddii aad taariikhdeena dib ugu noqoto waa aniga hadda ku iri ku dhowaad 5 bilyan oo dollar ayaa dalkan lagu lahaa waxaa kaloo lagu lahaa 100 milyan oo dollar oo deyn ah 100 milyan oo dollar oo deyn ah waxaa lagu lahaa dawladihii naga horreeyay oo ah heshiisyo ay galeen ama shaqaale aan mushaar la siin ama ciidamo aan mushaar la siin inta deyn noocaas aad galaysid waxaad ku saaqadaysaa qorshihii aad la lahayd hay'adaha dhaqaalaha adduunka marka waxaan aaminsanahay in adeegu uu soo wanaagsanaaday waxa kaloon rabnaa inaan ka sii shaqeyno in la cirib tiro musuqmaasuqa way arrinta amniga haddaan soo aadno waxaa jirtay inaad ku holaneedeen dib u habaynta ciidamada oo adiga iyo xukuumadaaduba aad ugu mashquulsanaydeen muddooyin ku dambeeyay maxaa idin qabsoon si wadanka wax looga qabto waxaan ku guda jirnaa inaan dib u habayn waafi ah ku sameeyno dhaqaalaha oo macnaheedu ay tahay in bangi dhexo shaqeynaya in bangiyas ganacsatada ay la xiriirto ay heli doonaan in ganacsatada dhibaataysan oo xawilaadda ka shaqeysa ay u fududaan doonto mar dhow marka ay hawsha noo hagaagto laakiin waxa isgarab socda shuruudda labaad ay tahay wax walba aad bixinayso inaad ogtahay meesha aad ku bixinayso sidoo kale qarashka dawladda Soomaaliya ka baxa waxa qaybta ugu badan lagu bixiyaa ciidanka si ciidamadeena shaqada wanaagsan dalkan ka haya qof walba ciidan oo mushaarkiisa u helo ama shaqadiisa iyo dhaqaalihiisa la isugu jaangooyo ama aan uga adkaan karna cadowga argagixisada ah waxaan hadda bilownay ama bilihii la soo dhaafay aan ku howlanayn inaan ku sameeyno dib u habeyn weyn ciidamada waxaan ka bilownay in askari walba la diiwaan geliyo askari walba oo la diiwaan geliyay waxaan ku xijinay inuu leeyahay account asaga u gaara oo bangi uga firan uu leeyahay in mar damba aan lacagta cid loo marsiin laakiin si toos ah loogu shubo halkii gacanta lagu qaaday inta bangiga lacagta cid ka soo qaada askarta loo qaybin lahaa oo adduunyadu naga aqbalayn waayo waxaan noqonay dawlad ka duwan wixii lagu yaqaanay waxaan leenahay tiradii ciidamada hadda inta la diiwaan geliyay ama booliis ahaadaan ama military ha ahaadaan waxaan siinaa mushaarkooda si rasmi ah waxaan dhignay meelaha muhiimka ah oo dhan dhalinyaro Soomaaliyeed oo yar oo hadda la soo tababaray ama qaybta dhaqaalaha ama qaybta maamulka ama qaybta soo gadashada wax logistics la yiraahdo intaas marka maxay naga caawinaysaa maadaama aan ognahay yaan lacag siinaa xagee baan ku bixinaa tusaale ahaan askari walba mushaarkiisu leeyahay $30 oo kamida raashinkiisa toosa hadda dawladdiisa u siisaa raashinkooda bil walba toos ay u qaataan iyagoo u maraya dariiqa iyo nidaamkii loogu talagalay waxaan bilownay inaan isku dhafno ciidanka waxaan bilownay inaan fiirino yaa u baahan inay helaan xuquuq hadda ay haystaan ama xuquuq ka duwan waxaan soo gaari doonaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan ognahay in ciidamadeenu ay tirsan yihiin toosan yihiin tayaysan yihiin joogaan meesha lagu ogyahay ugu dambeyn ciidanka Soomaaliyeed mushaarkiisa hadda ma bixiyaan dawladda shisheeye kulligood anaga bixina waxaan ka shaqeyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo inaan isku filnaano laakiin waa inaan aqbalnaa nidaam dawladeed inaan wax walba u marno ciidankoo la tayeeyay waa qarannimadoo la hagaajiyay waxayna maraysaa meel fiican sida aan 2 sano u soo wadnay dib u habaynta dhaqaalaha oo hadda ummadda Soomaaliyeed ay aragtay inay mira dhalayso sidii markii ay bilaabaneysay dib u habaynta ciidanka aanay dadku u fahamsanayn ku dhawaad ama in ka badan 18,000 oo askari ama 19 ku dhaw ayaa diiwaan gashan mushaarna toos u qaato oo military ah wali laakiin waxaan ku jirnaa kala gurudi kala hufudi waxa la soo mari doonaa yaa jooga meeshii loogu talagalay yaanan joogin yaa u baahan daryeel gaar ah yaan u baahnayn qalab noocay ah ka maqan xerooyin noocay ah ka maqan maamul noocay u baahan yihiin shaqo weyn ayaa naga horeysan ugu dambeyntii waxay taas u sahli doontaa iyada lafteedu hufnaanta dhaqaalaha ka sokow iyo maamul ciidan ka sokow waxay sahli doontaa soo dhaweynta ka adkaanshada argagixisada arrinta dagaalka lagu jiro al-shabaab
dad badan waxay aaminsan yihiin oo suuragal tahay inaad adiguba ka mid tahay in aan xoog kaliya arrinta shabaab lagu wajihi karin oo loo baahan yahay dariiqyo kale in la eego weli ma isku daydeen wada hadallo inaad la furtaan si aad isugu dhinac wadaan dhinacii dagaalka iyo wada hadalladiiba su'aal aad u muhiim ah waana mahadsan tahay waxaan rabaa in mar walba dadka waxa ku soo dhaca wada hadal waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo dagaalka shabaabku macnaheedu waxay tahay dhaqaalaha la kobciyo macnaheedu waxay tahay ciidan tayaysan oo shaqeynaya macnaheedu waxay tahay adeeg bulsho oo la bixinayo macnaheedu waxay tahay musuqmaasuq oo la dagaalamo macnaheedu waxay tahay bulsho isu timid kulligeed oo aamintay in cadow uu ku soo duulay oo cadawgaas iska celinaysa waa dhab in aan dawladdeenu maalintii madaxweynaha la doortay uuba bilaabay inuu cafis u fidiyo uuna yiri in cid walba oo doonaysa inay ficilkii hore ka soo wantowday inay cafis leedahay dad badan aan ku soo dhaweynay cid doonaysa inay isaga soo baxdana aan soo dhaweynayno laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego ka adkaashada argagixisadu waa qayb ka mid ah dib u habaynta dalka waa mashruuc qoto dheer oo dhaqaale huwan oo amni huwan oo siyaasad huwan oo arrimo bulsho huwan oo bulsho isu timid huwan waana shaqo socota oo aan aaminsanahay in natiijadeedu ay soo dhowda waxa laydinku eedeeyaa adiga iyo xukuumaddaadaba ama dawladduba inaad doonaysaan in wax kasta aad xoog ku maquunisaan halkii aad raadi lahaydeen dariiqyo kale hadday ahaan lahayd dhinaca wada hadallada haddii aan lahayd dhinaca dib u heshiisiinta haddii ahaan lahayd dhinaca isku jiijiidka oo Soomaali muddo dagaalamaysay u baahan in si jilicsan ama maslaxad guud la raadiyo marka qaar xooga maxal kaliya aad u aragteen waxaan rabaa in aan ka mahad celiyo in aad weydiin kartid su'aal walba oo qabtid waana muhiim dadka Soomaaliyeed inay maqlaan waxaan rabaa inaan kala duuno maxaa xoog ah maxaan xoog ahayn annagu cidna xoog kuma maqoonina laakiin dhaqanka dawladnimo ayaa wuxuu yahay haddaad rabto inaad dhaqaalaha dib u habeyn ku samayso waa in musuqmaasuqa la dagaalamaa waa in dakhliga meel gooni lagu abuura lagu bixiyaa waa inaan la bixin karin waxaan ahayn nidaam wax ku socdo hadaa ciidanka dib u habeyn ku samaynayso waa in nidaam aad soo martaa hufan oo kii aan ka hadlaayay ah qof walba inuu diiwaan gashan yahay inuu shaqadiisa joogo in meesha mushaarka lagu siinayo la og yahay in dawladdu ay leedahay nidaam ay wax ku baarto in ciidamada ama shaqaalaha rayidka oo noo shaqeeya iyo askarta booliska iyo militariga kulligood hal nidaam ay wada leeyihiin oo maanta la og yahay yaa noo shaqeeya xaggee nooga shaqeeyaan xaggee joogaan dalku marka uu dib soo maray uu isbedel jiro macnaheedu waxay tahay dadku waxay aaminsan yihiin sida hore inay wanaagsan tahay halkan aan fadhino adiga hadda ila fadhidid maanta maalintaan mid makhaayad baa ku taalay maanta waa aragtaa siday u taalo halkan waa xafiiskii dawladda guriyay ahayd dad baa deganaa maanta waad soo arki kartaa siday u nidaamsan tahay su'aashaada jawaabteedu waxay tahay maxaan sida hore isaga ahaan weyn jawaabteeduna indhahaada maxaad ku aragtay waay dawladnimada aan rabno waa horumarka adiga tusaale ahaan halkan markaa u soo qaadataa ku aragta macnaheedu marka waxay tahay waxaa muhiim ah in aan loo arkin in isbeddelku dhibaato keenayo waa muhiim dadka Soomaaliyeed inay nagala wada shaqeeyaan inaan dalka meesha u socdo aan gaarsiino ugu dambeyntiina kulligeen dalkan un baan leenahay inaan hagaajino aniga adiguba waan ku khasbanaa dabcan waxaad u ogolaatay inaad telefishinka Universal la hadashaa waxay ka mid tahay in mudane ra'iisul wasaare si daahfurnaan ah su'aalo lagu weydiin karo waxaana ka rajaynaynaa in fursad intaan ka ballaaran aad bulshada Soomaaliyeed u ogolaato inay kula hadlaan shacabka Soomaaliyeed oo idin soo banaan bixin adiga iyo madaxweynaha Soomaaliya 2 sano ka hor iyagoo aad ula dhacsan hogaamintiina iyagoo oo idinka filaya isbedelo mug leh mukula tahay in filashadii shacabka ay hoos u dhacday maya waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed intooda badan ama waxaan dhihi karaa meel walba ay joogaan in indhahooda ay macallin u yihiin
waxaan ballan qaadnay inaan dhaqaalaha dib u habeyn ku samayn doono adduunyada qirtay in Soomaaliya ay meeshii ugu wanaagsaneed tahay rajana ay leedahay waxaan ballan qaadnay inaan ciidamada dib u habeyn ku samaynayno waa adiga arkay waxaan ballan qaadnay aniga madaxweynuhu inaan wada shaqayn doono oo aan dadka hore ka duwanaanayno 2 sano soo wada shaqaynaynay waad aragtaan waxaan ballan qaadnay inaan musuqmaasuq iska ilaalinayno dawladuna ay musuqmaasuq la dagaalamayso waa aragtaan in xoolihii dadka iyo ummadda ay naga nabad galeen welina aan ku jirno inaan la sii dagaalano musuqmaasuq oo ahaan doona hadaf fog oo ay dawladdu leedahay waa aragtaan in maalintii shaqada aan bilownay ilaa hadda fariimaha aan shacabka Soomaaliyeed iyo dunida aan u dirayno inay isku si tahay laakiin ogsoonow waa sida aad u dhigtaan ama siday taata ma waa sida aad u dhigtaan sababtoo ah aniga adiga waxa mas'uuliyad naga wada saaran tahay dawladnimada waxaan rabaa wiilka dhalinta yar oo adigoo kala ah oo u shaqeeya saxaafadda oo subax soo kalaha asaga laftiisa sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu isu weydiiyaan maxaa dalka ku tartay isaguna sidaas yiraahdo in dadka Soomaaliyeed loo sheego fariin dhab ah waxaan aaminsanahay aniga adigaba inay noqosayso wiilasha iyo gabdhaha sharafta leh oo saxaafadda u shaqeeya oo adiga da'daadana waxaan rabaa inaan fariintaas u diro ah kulligeen waxaan wada saaran mas'uuliyad ah taariikhduna waxay nagu la xisaabtami doontaa waxa aan dumino iyo waxaan dhisno waa sidaas rajul aad baad u mahadsan tahay gabagabadii xukuumaddaadu waxay xoog saartay arrimaha dhaqaalaha guulana waad ka gaarteen laakiin waxa la idinku dhaliilaa in aydan ahmiyad weyn siinin arrimaha siyaasadda iyo amniga kuwaasi oo la dhihi karo waa caqabadaha ugu waaweyn ee xukuumaddaada iyo dawladda Soomaaliyaba xilligan ay wajahayso ma ku muuqataa inaad ka gaabiseen horumarka gaaridda arrimahaasi siyaasadda iyo amniga aad u mahadsantahay walaalkay horta aad ugu faraxsanahay in adigu leedahay xukuumaddaadu waxay ka shaqaysay arrimaha dhaqaalaha waxay ka gaartay horumar weyn waa inaad shacabka Soomaaliyeed adigu u sheegaysid waa ku mahadsantahay waxaan rabaa inaan kugu daro in dib habeyn ciidamada lagu sameeyo oo shaqada aan qabanno oo dibka aan marno welina aan marayno ilaa aan xalinayno oo aan xalki ku meel gaarka ahaa oo ku dhawaad 30 sano aan ku soo jirnay aan u gudbino xal waara ama xal mustaqbal iyada lafteeda waxaan rajaynayaa marka aad aragto mira dhalkeeda inaad marka dambe igala hadli doontid dib u habeynta wanaagsan oo ciidamada ka socota arrimaha siyaasadda waxaan rabaa inaan ku sheego sida dib u habeyn loogu sameeyo arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha amniga ayaa waxa ku socota dib u habeyn mug leh inaan ku sameeyno iyadana waxaan ka shaqeynaa oo sanadkan iyo sanadka ku xiga ay shaqadeenu u badnaan doontaa haddii Ilaahay yiraahdo dhamaadka sanadkan iyo horaanta sanadka soo socota iyo dhamaadka maadaama lagu dhow yahay waqtigii shacabku noo igmaday inaan u adeegno waxa aan xoog saari doonaa sidii dastuurka loo dhameystiri lahaa sidii awood qaybsiga khayraad qaybsiga nidaam maaliyadeed oo dalka u wada hufan sidii doorasho noocee ah dawlad noocee ah asxaab noocee ah waxaa soo dhan 4 tubood oo ay dawladdu leedahay ama tubta dhaqaalaha tubta siyaasadda loo dhan yahay tubta arrimaha bulshada iyo tubta amniga ayay qayb ka tahay waa shaqooyin jaango'an oo wasaarad walba ay leedahay hadaf u degsan hadafyada inoo degsan marka la yiraahdo tubta siyaasadda loo dhan yahay ayaa waxay tahay intaas oo dhan inaan soo dhameystirno qaar waxay ku xirnaan doonaan shuruuc qaar waxay ku xirnaan doonaan la shaqaynta dawlad goboleedyada qaar waxay ku xirnaan doontaan siyaasiyiinta waddanka oo dhan iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan sida uga qayb qaataan waana howl socota marka waxaan rabaa inaan ku bayaaniyo dib u habeynta dhaqaalaha dib u habeynta ciidamada ee amniga iyo dib u habeynta siyaasadda intaas marka la isu jaangooyo waxay dhali doonaan arrimaha bulshada iyo sidii dawladdu adeegyo hufan mustaqbalka dalka u siin lahayd go'aankaagii kugu adkaa ee aad qaadatay muxuu ahaa markii aan shaqada bilaabay 2 arrimood ayaan u sheegay wiilasha iyo gabdhaha ila shaqeeya oo runtii raba inaan halkan uga mahad celiyo dadka xafiiskayga ka shaqeeya oo qaybka shaqada iyo dhammaan wasiirada iyo dadka ila shaqeeya oo runtii bixiyay xoog badan
labadaas arrin waxay tahay kow si aan ummadda Soomaaliyeed wax ugu taro ama shaqo ugu qaban karo anigu nafteyda inaan ilaaliyo inaan ammaano leeyahay inaan shacabka Soomaaliyeed xoolahooda dhibaateyn inaan qabyaalad ka shaqeyn inaan laalaab iyo musuqmaasuq ka shaqeyn labo waxaan u nimid nidaam dhisan halkan oo aan aaminsanahay in ay ahayd khasab in la bedelo dagaalka aan ku jirno oo dhibka badan maalin walba oo aan soo toosana aan ku jiro waxay tahay ma nidaamkaana bedelaya mise annaga bedelayna ilaa hadda waxay ku socotaa annagu nidaamka inaan bedelayno mar walba nidaamka horena aan ku guuleysanayno inaan bedelayno waa horumar u yimid ummadda Soomaaliyeed ugu dambeyntii arrinta warbaahinta madaxa bannaan cabasho ayaa jirta oo ah dawladdu inaanay fursad siinaynin mararka qaar ama xafiisyadii dawladda inta badan warbaahintii madaxa bannaan aanay u helin fursado ay akhbaaraadka iyo waxa bulshada ay u baahan yihiin ay uga soo qaadaan doorkiina warbaahinta madaxa bannaan muxuu yahay horta waxaan rabaa inaan ogaado ama adiga ka ogaado marka Soomaaliya barbar dhigto dalalka dunida ama wadamada geeska Afrika waa maxay doorka warbaahintu ay ku leedahay dalkan warbaahin furan xor ah waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay tahay wadamada ugu horeeya doorka idinku aad ku leedihiin dib u dhiska dalka maxay tahay waxaan aaminsanahay idinka laftiina inaad dib isugu noqotaan inaan u furannahay waxa tusaale ah inaad hor fadhidid aad weydiisay su'aal walba aad doonaysid haddii ay ku dhiman tahay aan diyaar u ahay inaad sii weydiisid ugu dambeyn shacabka Soomaaliyeed diyaar ma u tahay inaad soo hor fariisato iyadoo meel public ah isla markaana si furan ugu ogolaato inay su'aashay rabaan ku weydiiyaan ugana jawaabtid si fudud haddaan kugu sheego marar badan ayaan sheegay aniga iyo inta ila shaqeysa iyo madaxweynuhu waxaan nahay mas'uuliyiin dalkan ma ahan milkiilayaashu waa shacabka Soomaaliyeed annaguna waxaan nahay adeegayaal qof walbo adeega shacabka Soomaaliyeed waxa muhiim ah inuu soo hor fariisto ka jawaabo su'aal walba diyaar ayaan u ahay goob walba iyo goor walba